khilaafka Soomaalida ee xagga siyaasadda ayaa gaaray muddo dheer in xal loo waayo in gabi ahaanba la soo celiyo qarankii dhexe ee Soomaaliyeed oo ka wada taliya guud ahaan dalka Soomaaliya. haddaba weliga ma istiri khilaafka Soomaalidu waxa uu gaari doonaa in qiblada loo tukanayo lagu murmo. culimo joogta magaalada Gaalkacyo ayaa ka walaacsan khilaafka xagga qiblada ah oo la sheegay inuu ku soo kordhay magaalada Gaalkacyo. liibaan cajiib xaaji ayaa warbixintan inoo diyaariyay. shirkan oo ahaa mid ay soo qaban qaabiyeen culimo diinka gobolka Mudug ee Galmudug ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay xaaladda nabadgelyo ee magaalada Gaalkacyo iyo arrin ku saabsan qiblada ama jihada loo tukanayo oo bulshada Gaalkacyo ay ku kala qaybsaneed maadaama uu jiray khilaaf soo kala dhaxgalay culimo diinka gobolka Mudug. culimada ayaa waxay sheegeen inaysan jirin wax qibla ama jiha cusub balse qibladu ay tahay tii hore iyagoo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Mudug ugu digay arrintaasi. uuna baaqayaan ummadda islaamka ah in ay qibladii islaamku ogaa iyo maxaaribta islaamka ay joogaan isla markaana ay ku tukadaan kuna sugnaadaan. midda koobaad waa saasay culimadu ugu baaqaysaa kadib markay u cadaysay culimada diinku waxa ay diinta islaamku ka qabto waxyaalaha hadda waxa weeye la soo geliyo wadanka uuhaada ay u naseexaynayaan dadka waxa weeye mashaayikhda ama culimada oo ay la fiicnaatay barnaamijka handasada la yiraahdo waxay uga naseexaynayaan barnaamijkaas inay Ilaahay uga toobad keenaan ay kana noqdaan ummadana aysan ku wareerin ay culimadu uga naseexaynayaan qaadatay barnaamijkaas. ugu dambeyntii waxay culimadu diyaar u yihiin wixii diinta islaamka ah oo arrintaasi looga wada hadlayo inay diyaar u yihiin waxa weeye fi miisaan shariicada islaamiga ama fi miyaar shariicada islaamiga inay wala hadlaan cid adle cidii diyaar u ah inay kala hadasho arrintaas. taariikhna 950 sano masaajid dhisana oo kana ku mixraab ku cabira iyo xamarka dhisan oo lagu tukada kuwana ku cabiri intaas oo sano ninka قدينا maanta على علم ما هني يعني على جهل اللي كل دقيقة dadku waxay yiraahdaan اعتقادkiisa markuu diinta dhowrahayo waa isku dariiqo shay daliil cad inuu haysto waa xujo iimaankiisa u cuskado iyo acmaashiisa hadii kale اعتقاد jaazima ayuu adilada baran dadku waaga hore iimaankiisa tawxiidku markuu ku dhawaaqo nabiga kaleey salaatu wasalaam ayadu ku kaaftoonaan jiray adiladu ha u dambayso اعتقادka jaazimka ah قيدعان قفك هذه الوجه ترى واحد يقول اعتقادك كلها بني مركا محارمتها مسلمين تكل يقينوا اجتهاد كان قطبي ما انت محار قد الله حدود جوجا محاربته لم بيقرنها يعني سيدي عبرنا حد قلبت زين نقود عبرين طبك aad garanaysaan oo la yiraahdo minhaaj oo iska laha imaamkaygi imaam Nawawi rahmatullahi alayhi oo uu ka soo gaabiyay kitaabka muharrar la yiraahdo imaam Raafici uu leeyahay waxa weeye matnigiisi waa garanaysaan waman amkanahu ilmu alqiblati haruma alayhi taqlid wal ijtihad wa illa akhadha biqawli thiqatin yukhbiru an ilmin fa in faqada wa amkana al ijtihad haruma taqlid waxa weeye qibladu maratib bay leedahay dadka macnaa qof waliba ijtihaadka meel buu u qaban hayaa meeshii asagu uu ijtihaadku u qabto oo is yiraahdo meeshaas qibladii ku aadan tahay meeshaas unba asaga salaadiisu ay ku ansaxaysaa ku jahaynaya laakiin ma ahan qof asagu mujtahid oo ijtihaaday inuu macnaa dadka asagu uu yiraahdo meeshaan anigu aan ku ijtihaaday hal la aado oo meesha dadku hay isugu yimaado ma ay ahan. liibaan cajiib xaaji TV Universal Gaalkacyo.